habeen wanaagsan dhammaantiin ku soo dhawaada barnaamijkeena daqiiqadaha wararka taariikhdu waa 27 Sebtembar sanadka 2023 Afrikada barna saacadu waa 8 fiidnimo oo gow ah qodobadan idin haya caawa waxa kamid ah xuska mawliidka dhalashada nabiga nabadgeliye naxariis korkiisa haatee oo meelo badan laga xusay Hargeysa Gabiley Gaalkacyo Jigjiga muqdisho iyo dhul badan oo Soomaalida ah ayaa maanta loo dabaaldegay dhalashada mawliidka gabar sheegtay in si qasab ah loogu guuriyay nin al-shabaabka ka tirsanaa haddana soo baxsatay qorina qaadato dagaalka qayb ka ah balse waxaan ka jiifo waayay in gabdhaha walaalaha rafaadka ah ka soo barbaxsan in ay u heli waayeen fursad ay ugu soo baxsadaan aan haddana aniga ahaantayda dhiigayga nafteeda u qoro ciidamada ATMIS ee waajid jooga oo iyagana qayb ka ah xuskan mawliidka xoolo nool ayaana lagu wareejiyay guutada madaxtooyada ilaalisa ee Muqdisho ayaa iyaguna dhinacooda ka xusay dadka aragala oo jaamacadda Muqdisho ka qalin jabiyay waxay sheegeen in jaamacadaha kale ay fursad ka waayeen Muqdisho waxa ka taagan dood ku saabsan cambel la sheegay in dibadda laga soo dhoofiyo ciidanka SAC ee furimaha guumeys jooga oo agab jaaliyada dibadda ay soo dirtay la gaarsiiyay muranka ku saabsan qabiiladan calamada samaystay oo Nairobi laga mamnuucay iyo dabcan xubinteennii suugaanta aan ku bilaabay dhulka Soomaalida magaalooyin waaweyn oo ku yaala dhalashada xuska mawliidka ee nabiga markuu dhashay ayaa si weyn looga xusay xuskan dhalashada nabi maxamed nabadgeliye naxariis korkiisa haatee ayaa maalmahan baqaban qaabadiisa aad loo soo hadalhayay aan ku bilaabo magaalada Gabiley waa dhalashadii xabiibka maxamed sallallahu alayhi wasallam waa nicmadii ugu weynayd ee ilaahay bixiyay ayaa maanta timiday wujuudka ilaahay wuxuu sankiisa neef geliyay baana ku farxay kolka laga reebo qolo kaliya alaa huwa shayaadiinu calayhim allacna kuwaasaa ka xumaaday oo habeen madoobi u dumay nacdali korkooga ha ahaato cidda qoladaa maceega noqotay lamama hadlayo aanu aad iyo aad baad u mahadsantihiin dhalinyar iyo waayeel iyo rag iyo dumar inta u soo baxday dabaaldega nebiga ee ku faraxsan ee ilaahay ugu xamdiyaysa ee jecel ee qalbiga ka jecel ee maalka ku jecel maalkooda ku bixinaysa ee naftooda ku bixinaysa ee cadceedda u taagan ilaa saacadda aan joogno ee gadiidka tahay ilaahay jaah rasuulka khooda abaaliyo waan leh Hargeysa ayaa ka mid ah meelaha sida weyn la isugu soo baxay mawliidkana laga xusay xafladan qiimaha iyo qaayaha badan min boorama Gabiley Arabsiyo Hargeysa inta uu iska qabqaada maalintaas ilaahay waxaynu ka baranaa Sheekh Ahmed Sheekh Cali Ayaale in ilaahay kor u qaado in ilaahay cisi iyo sharaf iyo karaamo siiyo waraamin aamin balana aamin noda quruxda aynu ku joognaa ninkii xafladda keenay waa isaga ilaahay kor ha u qaado cisi iyo sharaf iyo karaamo Allah siiyo culimada halkan qasaa'idka ka akhriyeen iyaguna waynu ducaynaa ilaahay cibri dheer iyo cisi dheer baa Allah siiyo madaxweyne ku-xigeenkii jamhuuriyadda Soomaaliland oo magaciisu yahay sheekheeni weynaa ilaahay baa weyne Sheekh Cabdiraxmaan Seeni radiyallahu anhu ayaa mar walba madaxda qaranka ugu sarreysa ma hayna madaxweynihii jamhuuriyadda Soomaaliland maruu ka soo qayb galay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ma joogo ma hayno ilaahay saraha u qaado madaxweyne ku-xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Seeni Gaalkacyo xarunta gobolka Mudug iyaduna maanta lagama fariisanin oo si weyn ayaa munaasabadan loo xusay looguna soo baxay يا خير الأنام عليك سلامي يا خير الأنام يا خير الأنام اللهم صل يا خير الأنام يا خير الأنام عليك يا خير الأنام عليك سلامي يا خير الأنام يا خير الأنام
عليك سلامي يا خير الأنام اللهم صل وسلم وبارك عليه صلى الله وسلم عليه. وهجاك شعب أو كلية حسك النبي قد لشديسة نبتقلية نحريس كوركي ساعته ما حصيان أو أمد بالدقيان أو عيدا كالصومالي ذا أيا قيب كمدا قوت هذا مدحتوية ذا مقدشة إلى عليسا أيا يونا ما أنت سيدا واحد ريي يا عليه السلام عليك من رأي نور العين مرحبا محمد بدلنا فلا أنت شمس بنورك لا تلبدها محمد. وهجاك مقدشة أنت أنا كبحين عم بلا شيء إندي بدل لقى سوق فيو أيا مالمهم با ضد يبوغ وين أي كرالتي dadku waxay sheegayaan maadaama Soomaaliya gaar ahaan koonfur ay khudaartu caan ka tahay maxaa keenay in dalka Masar cambe laga keeno khudaarta cambeena waa iska fiican yahay ma sha Allah way mooskan waa fiican yahay kabsaraan dad si hormaad waa soo jabtay in faan beeraha ma sha Allah way cambehan iyo qarahan iyo kuwa had siinay dad midalan siinay suuq qaraha dad qaraha badan ayaa maanta yaal marka khudaar naga filan wadanka noo yaal khudaartan dibada la keenay qalada u arkaani نقابل إسكفلن قدرتنا وقتي ولا فين جري وقتي تليان ويجوي جري مرد أمبهن يوم موسكن كلي حالقين جري دقيقة على فين جري مركين نرسل في تاس نسيب درواي تاس إدك تلسي إدا أنا إلى غلط نواي أنا تقول الله نكون واحد فهمتي أبتنا توقع شغال مغاير بدنا أسوأ مري مرك أمبها أو ديود لك يعني كان هو نوبها حتى إسكول دن معها إسكو تايه حتى معها موسك ساس وكل فهمتي موسك ساس وكل أمبها ساس وكل فهمتي لينتن ساس وكل حتى أسكول دن حتى معها ودان كان غيرات كبا غيرات ولا سوق بكر معها فهمتي مرك نسيب درواي كل أمبها ديود لك أنا وهجاك dadka aragala inta badan waxbarasho jaamacadaha iyo dugsiyada sare ma helaan balse qaar ka mid ah oo wax bartay ayaa muqdisho jaamacadeeda hadda ka baxay waxay sheegeen fursadihii ay hore u waayeen iyo tan ay hadda haystaan sharafi farxad gaar ay tahay maanta inaan ka mid ahay qalinjabiyaasha dufcadda sagaalaad ee jaamacadda Jobkey runtii dareenkaygu waa mid farxadeed oo ballaaran oo aan la soo koobi karin waxaan dareemayaa farxad gaar ah waxaan dareemayaa in safarkii dheeraa ee aan ugu jiray guusha waxbarasho qayb ka mid ah maanta inaan u taaganahay marka waa maalin weyn oo taariikhdayda runtii baal dahab ah kaga suntan waxaana u mahadcelinayaa maamulka iyo howlwadeennada jaamacadda Jobkey iyo dhammaan dadkii qaybta ka ahaa in heerkan inay wax soo gaaraan heerka waxbarasho ee dadka baahiyaha gaarka qaba ama dadka naafada ah ee Soomaaliya waa mid runtii aan lagu soo koobi karin waraysi kooban oo waxa jirta in duruufuhu aad ay u badan yihiin marka eegto dhanka helitaanka qalabka markaad eegto dhanka adeegyada joogtada ah ee laga heli karo xagga dawladda sidoo kale markaad eegto nidaamka waxbarasho ee dalka oo aan ahayn mid loo dhan yahay dhammaan waa caqabado jira hase ahaatee haddana sabar iyo dulqaad badan oo aan runtii kaga mahadcelinayo dad badan oo uu ka mid yahay maanta ugu weyn yahay isla markaana madashan ila joogo runtii jaamacadda laftirkeeda inaan bilaabo ayaan caqabado badan ka maray waxaa jiray jaamacado fara badan oo ka mid ah jaamacadaha ku yaala magaalada Muqdisho oo aan markayga hore tagay kuwaas oo aan ka heli waayay adeega waxbarasho ee aan u baahanahay waliba qaarkood ii sheegay in siyaasadoodu aysan ka mid ahayn inay wax baraan dadka naafada ah taas oo aad dareemaysid heerka wacyi ee bulshadeena xitaa aqoonyahankeena maanta وهجاك فريمها دجالك AI سكور فديان عيدا كأساسي قاتوما إيا سوماليلاند جوميس إيا أوك ودحيا أيا واحد لجارسيي أجاب لا شيء إن جالية الرئيس قاتوما إديو دك كينن أجاب كان عيدا كان لو قيبي waxaan joognaa jiid hore waxaan la joognaa ciidamada xaq u dirirka SSC gaar ahaan sarinta waxaan ciidanka rabnaa maadaama lagu jiro xilli roobo ah oo waxaan rabnaa insha Allah inaan ku wareejino alaab iyo agab ka kooban alaabta dhaxanta iyo xilliga roobabka laga xidho sida bustayaal iyo jaakada iyo wixii la mid ah alaabtan waxa soo dhiibay walaalo kamid ah dadka SSC gaar ahaan ku nool wadanka Mareykanka oo ay kamid yihiin Mahad Cali Dheere iyo xaaskiisa Saciid Cabdiraxmaan Jibriil Cadaani alaabtaas rabnaa insha Allah in ciidamada ku wareejino alaabtii ugu horeysay noqon mayse waxaan rajaynaynaa alaabo badan oo kale in ay
soo dhiibaan qurbo joogtu oo dadka naftoodii iyo dadkoogii iyo dalkoogiiba difaacaya ee dhaxanta iyo milicda jooga in ay ku soo dhiiradaan oo wixii ay awoodi karaanba ay soo gaarsiiyaan. wahagaag magaalada Nairobi waxaa laga mamnuucay qabiiladan Soomaalida ee qolo walba ay calan gooni ah samaysatay buuq iyo amni xumo ayayna arrinkan keentay baa la yiri haddaba maxaa keenay amuurtan maamul annaga naga korreeyna waa jiray annagana waa qeyban ka ahayn sababtoo ah horta meeshan waa goob ganacsiga Eastern Central Africa meesha ugu weyn waay mar walba wixii dhib keeni karo amase dhibaato ku abuuri kara ganacsiga iyo xasiloonida in laga fikiro way annagoo ka fikirayn taas dad badanna ma arta aan la tashanay laamaha amniga ay kamid yihiin iyo culimada Soomaaliyeed ee halkan ma arta slii ku nool ayaan la tashanay wada tashi dheer aan sameynay xaafadda waxay noqotay waxaan aragnay in calamadan waxaan u kala qaaday laba qayb calamo oo beelbeela ah oo qabiil iyo jifi kasta maalin fulaan annaga askale ay leeyihiin oo calan gooni la soo sameystay xilliga nin kasta calan gooni wata iyo mid oo haday Soomaali wax ka dhacaan mise meel kale wax ka dhacaan calamo kale oo maamul goboleed ahaado maalin kasta dabaaldeg iyo waxa maarta xaafadda lagu sameeyay marka waxaan aragnay khatarta ah xaafadda meel ganacsi waa meel ganacsina waxay rabtaa dhowrid sidii isha loo dhowro in wixii dhib keenay amni darro u keenay maarta xasilooni darro u keenay in laga fikiro marka waxaan iri aan sameeyo culimadii iyo dadkii ganacsatadii iyo dadka culimada diinka markaan la tashanay waxay dhaheen arrintan in la joojiyo dawladana qayb ay ka aad marka horeba arrintaas dawladda raali kuma ahayn waxaan dhaanay marka inaan wax la calan ah dabaaldeg nooc kasta u ahaado in laga joojiyo xaafadda mamnuuc ka ahaado wahagaag caawa suugaanteena waxay ku saabsan tahay cod aan innaba caadi ahayn muusig iyo durbaan midna ma saarna yaanan idinka diline ila daawada faanku qaadiyo waa sahal dabayshuye ayaan dadkun kula tagin waan daalaye haydaraan adalkii maanta duule wanka helaye haataniyo ilaalisa dayac gamceedey soo dagooli ku daawade daqiiqadii wararka fiidnimada caawa intaasi haynoo joogo waad ku mahadsantihiin daawashadeenna cabdifataax cabdullaah soo saaray baahintan maxamed elfis wuu farsameeyey aniguna cabdirasaaq catoosh baan ahay tan iyo kulankeenna kan xiga nabadgelyo faa'iidooyinka adeegga ibesa sendi money dirista lacagaha withdraw money qabixidda lacagaha airtime top up ku shubashada xirmooyinka ku hadalka ibesa bay lacag bixinta ama tukaamaysiga loans and savings amaahda iyo kaydka ibesa global xawilaadaha ibesa mastercard ijwa mastercard banking service adeegyada bangiga ibesa goor kasta iyo goob kasta